kusoo dhawaada saaxiibayaal filimkeena maanta si aan muuqaalka u bilowno YouTube subscribe dhe muuqaalkan like saaro ku maadsanta daawashadaada filimku waxa uu ku bilowdaa xabsi ku yaala Siberia halkaas oo dad laga keenay dalal kala duwan lagu xiro ka baxsashada xabsiga waa midaan macquul ahayn xabsiga waxa ku hareeraysan kumanaan kiiloomitir oo baraf iyo buuro ah dagaalkii labaad ee adduunka kadib Soviyeetku waxa ay qafaasheen kumanaan dad ah waxayna ku qasbeen in maalintii iyo habeenkii ay ka shaqeeyaan macdanta xabsiga ammaankiisu ma adka balse qofna ma baxsado banaanka xabsiga derbiya ayaa ku wareegsan oo ka samaysan baraf deegaan la degan yahay waxa ugu dhow 1 kiiloomitir haddii qof isku dayo inuu baxsado qabowga Siberia ayaa nafta dhaafinaya xabsiga ma jirto qof ku xiran oo ku riyo kar baxsasho maxaabiista waxaa kamid ahaa sarkaal ciidan oo lagu magacaabo Jaynus si been abuur ayaa loogu eedeeyay dambiyo dhowr ah waxaana lagu qasbay inuu saxiixo qirasho laakiin wuu diiday sarkaalka baaris sameeynaya waxa uu keenay xaaska Jaynus ilma ayaa indhaheeda ka daadanaysay waxay sheegtay Jaynus inuu yahay ninkeeda iyo inuu nacay xisbiga shuuciga isla markaana uu sirdoon u yahay Poland iyo dalal kale Jaynus uu la yaabay laakiin markii uu eegay waxa uu fahmay xaqiiqada waa la jirjilay si uu sheegtay hadal been abuur ah iyadoo lagu saleynayo beentaas Jaynus waxa lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah iyadoo lagu eedeeyay jaajusnimo waxaana la geeyay xabsiga shaqada ee Siberia kadibna waxaan aragnaa maxkamadda oo xukumaysa iyagoo u sheegaya kaliya inuu xabsigoodu ay xiradan ay tahay Siberia oo dhan xabsi xitaa haddii si la yaab leh u baxsadaan dadka deegaanka ah way dilayaan sababtoo ah waxay helayaan abaalmarino lacageed haddii ay dilaan qof ka baxsada xabsiga marka xiga waxaan aragnaa dhawaan maxaabiista oo saf u taagan cunto waqtigaas Jaynus waxa uu arkayaa maxbuus hore oo ku xirnaa xabsiga oo gaajaysan Jaynusna waxa uu cuntadiisa siiyay maxbuuskaas nin la yiraahdo Mr Smith waxa uu sheegayaa Jaynus in aan halkan isxaan la sufalin haddii aad cuntadaada siiso qof kale waxay sidoo kale ka reebayaan cuntadaada maalinlaha ah kadib Jaynus waxa uu la kulmayaa maxbuus la yiraahdo Kabro oo ahaa jilaa Kabro waxa uu sheegay Jaynus inuu nin taajir ahaan ku jiray filimka taasoo keentay in lagu xukumo xabsiga 10 sano Jaynus waxa uu Kabro weydiiyay haddii ay jirto dariiqo looga baxsan karo xabsiga Kabro waxa uu ku yiri maya waxa uu sheegay inuu ku fikirin baxsasho haddii kale waa la dilayaa maalintii xigtay dhawaan maxaabiista waxay tagaan keenta si ay soo gooyaan alwaax waqtiga Jaynus waxa uu raadinayaa meel uu ka baxsado fiidkii waxaan aragnaa Kabro uu Jaynus inuu leeyahay qorshe baxsasho wuxuuna sugayaa saaxiib geesi ah oo aan cabsan sida Jaynus Kabro waxa uu sharaxayaa qorshihiisa isagoo leh qiyaastii meel 500 kiiloomitir ka fog harada Baykal haddii uu gaaro wuxuu galayaa koonfur xeebeedka wuxuuna gaari doonaa tareen Siberia markii uu ka sii gudbo waxa uu gaari doonaa Mongolia laakiin marka hore waa inuu dhamaado xilliga qabobaha kadib ayaan ka baxsanayaa halkan intaas waxa uu dheer inuu soo arooriyo cuntada uu cuni lahaa inta uu ku jiro safarka kadibna waxay bilaabeen si wada jir ah inay u arooriyaan cuntada maalinlaha ay helaan maalin Jaynus iyo Mr Smith waxa ay ku jireen iyaga iyo koox kale maxaabiis ah shaqo macdan qodis ah halkaas oo badbaadadu ahayd mid saayid u adag waqtigaas Jaynus waxa uu arkayaa waxyaabo meel awaal ah oo ay kamid yihiin gurigiisa Jaynusna isagoo u dhaqaaqaya guriga waqtigaas ilaaliya ayaa soo diyaarinaya inuu toogto laakiin nasiib wanaag Mr Smith ayaa qabtay isagoona badbaadiyay noloshiisa halkan Jaynus wuxuu Mr Smith sheegayaa qorshaha Kabro ee baxsashada laakiin Mr Smith waxa uu leeyahay Kabro ma laha wax qorshe baxsasha wuxuu ku sheegayaa been sidaasna waxa uu la hadlaa maxaabiista cusub haddii aad rabto inaad halkan ka baxsato aniga ayaa kula jira Jaynus waxa uu weydiinayaa sababta uu rabto inaad ila baxsato markii uu maqlo Mr Smith waxa uu leeyahay waxaa tahay qof wanaagsan waxaadna leedahay bini'aadanimo taasoo aniga waxtar ugu yeelan karta haddii wax igu dhacaan safarka adiga ayaa i caawin doona tuufaan baraf oo aad u xoogan ayaa dhacaysa Jaynus waxa uu Kabro u sheegayaa in habeenkan uu yahay waqtiga uu fiicnaa ay baxsan lahaayeen sababtoo ah tuufaanta barafka waxa ay tirtiri doontaa raadkooda taasoo ay ka dhigan tahay inay adag tahay inay helaan ilaaliyaasho laakiin Kabro waxa uu leeyahay habeenkan inaan baxnaa sax maaha sababtoo ah cunto ma aruurin diyaar garow kale ma sameynaa maxbuus dambiilaha oo Ruushya oo lagu magacaabo Falka ayaa sidoo kale maqlay hadalkooda markuu maqlo Falka wuxuu u hanjabayaa Jaynus sidoo kalena waxa uu rabaa inuu la baxsado Jaynus wuu ogolaaday habeenkaas Jaynus iyo Mr Smith iyo Falka iyo 7 kale waxay u diyaar garoobayaan inay baxsadaan Kabro wuxuu diidayaa inuu tago isagoo leh diyaar garowgu ma dhamaan si ay u baxsadaan marka hore waxay daminayaan generatorka kaasoo kaliya dami doono 10 daqiiqo kadib waxa ay jarayaan xariga waxayna bilaabayaan inay ku ordaan keenta markii ay ilaaliyaasha ogaadaan in maxaabiista qaar ay baxsadeen iyaguna waxay aadayaan keenta si ay u raadiyaan laakiin duufaanta barafka ee xoogan awgeed raadka maxaabiista hore ayuu ku tirtirmaya taasoo ay ka dhigan tahay in ilaaliyaasha ay ogaadaan jihada ay ka baxeen maxaabiistu ilaaliyaashan waxay keenta ku sii daayaan sidoo kale duufaanta ayaa aad u adag taasoo ka dhigta maxaabiista inay saayid u socwaayaan laakiin ayaga oo adeegsanaya midida Falka waxay fujisanayaan qolofka sare ee geedaha si ay uga sameystaan maaskaro wajiga kadibna waxay bilaabayaan inay hore u socdaan markii subaxii la gaaro waxay aad uga fogaanayaan xerada halkaas oo ay adag tahay in ilaaliyaashu yimaadaan hadda waxay fadhiisteen hal meel waxa ayna soo bandhigayaan dhamaan cuntadooda ay arooriyeen taasoo ku filan dhowr toddobaad kadib markay nastaan waxay mar kale bilaabayaan inay socdaan waxay ku qasban yihiin inay gaaraan xadka Mongolia iyadoo maraya harada Baykal ee koonfurta taasoo tigitaankeedu qaadan doonto maalmo Jaynus isagoo kaashanaya qoraxda wuxuu fahmayaa dhamaan jidadka waxayna sii wadayaan safarka markii habeenkii la gaaro waxay ku nasanayaan keenta si ay dab u shitaan dhamaantood waxay raadinayaan xaabo mid kamid ah wiil lagu magacaabo Kaasi wax ma arki karo habeenkii waxa kaliya oo ka warqabana waa saaxiibkii Kaasigu lumay isagoo raadinaya xaabo markii
markii qof walba oo la soo noqdo xaabo ma arkaan saaxiibkood kaasi sidaa daraaddeed dhammaantood waxay bilaabeen inay raadiyaan balse ma aysan helin subaxdii waxay arkayaan kaasi oo meel u dhow fadhiya laakiin nasiib darro qabowga daran awgii wuu dhintay qof walbana wuu ka murugooday geeridiisa Jaynes waxa uu leeyahay uu guuleystay maanta sababtoo ah isagoo xor ah ayuu dhintay waxayna u sameynayaan sagootintii ugu dambeysay wayna aaseen jirkiisa kadib waxa ay sii wadaan safarkooda waxaan aragnaa inay maalmo badan ku jiraan safar waxaana ka dhamaaday cuntadoodii si ay gaajada isaga daboolaan waxay cunayaan cayayaanka iyo shimbiraha ukuntooda waa inay gaaraan toddobaad ka hor harada bilki laakiin waxa ay ka lumeen jidkii welina waxa ay ka fog yihiin harada habeenkii ayay hurdaan waxayna maqlayaan dhawaaqa xayawaan wayna u soo dhowaadaan si ay u baaraan waxay arkayaan dolphin cunaya xayawaan ay qabteen wayna ka eryadaan iyaga oo cuna hilibkii taasoo siisa nafis subaxii xigay Jaynes waxa uu sheegayaa inuu keligii tagayo si uu u sahmiyo harada haddii uu ku soo noqon waayo toddobaad gudihii waa in loo qaataa inuu dhintay kadib Jaynes waxa uu keligii tagayaa si uu u soo helo harada kadib dhibaatooyin badan waxa uu ugu dambeyntii arkayaa harada maalintii saddexaad Jaynes wuu ku soo noqdaa waxa uu u sheegayaa in haradu ay u jirto hal maalin waqtiga xaaladda Jaynes way xumaatay sidaa daraaddeed way daryeelayaan maalintii xigtay waxayna u socdaan harada waqtigaas waxay arkayaan gabar cararaysa gabadhu waxa ay u sheegtay inay ka baxsanayso ruushka ayna gaajoonayso maalmo badan waxayna ka codsatay inay raacdo Jaynes iyo Fox waxa ay rabaan inay caawiyaan gabadhan laakiin kuwa kale ma doonayaan inay wadaan sababtoo ah cuntada kuma filna sidaa daraaddeed way ka tagaan oo waxay u socdaan hore markii ay gaaraan harada waxay arkayaan deero ay ku dhagtay dhiiqada wayna ka baxshaan dhiiqada iyagoo cuna dhowr maalmood habeenkii Fox waxa uu keenayaa gabadhi waxayna siinayaan cunto iyagoo ku daray kooxda magaceeduna waa Irana maalintii xigtay qubays iyo maryo dhaqo ayay galeen kadibna waxa ay sii wadaan safarkooda inta safarku socday Irana waxa ay la qabsataa kooxda kadib dhowr maalmood oo socda way gaaraan jidka tareenka ee Siberia oo ka ag dhow xadka halkaas oo ay ku qaadanayso inay gaaraan Mongolia 5 ilaa 6 maalmood maadaama ay ka ag dhow yihiin boolis iyo dad maalintii way seexdaan habeenkiina waxay ka gudbayaan jidka tareenka habeenkii oo dhanna waxa ay sii soconayaan Mongolia laakiin falka waxa uu Jaynes u sheegayaa inuu sii socon karin oo ku joogtanayo halkan maadaama uu ruush yahay markii uu maqlo Jaynes waxa uu leeyahay nabadgelyo kadibna way sii wataan safarka markii ay gaaraan xadka Mongolia waxay arkayaan sawirka Stalin ee albaabka ku sawiran taasoo ay ka fahmayaan hadda in Mongolia hoos timaado xukunka shuuciga wayna niyad jabaan sababtoo ah waxay qatar galiyeen noloshooda si ay u soo gaaraan halkan hadda Mongolia iyaduna ma ahan amaan Jaynes waxa uu soo jeedinayaa inay aadaan Hindiya ay ka maraya Tibet maadaama hadda Hindiya hoos timaado xukunka Ingiriiska halkaas oo laga yaabo inay amaan ku helaan laakiin si loo gaaro Hindiya waa in laga gudbaa saxaro iyo buuraha Himalaya waxayna go'aansadeen inay ka gudbaan si ay xorriyad u helaan inta ay safarkan ku jiraan waxay ka gudbi doonaan lama degaanka Gobi ee ballaaran waxayna u socdaan hore iyaga aan quusan waxa ayna cunayaan wax kasta oo ay ka helaan lama degaanka si ay gaajadooda u daboolaan dharkooda ay biyo yar ku shubaan si ay isaga dhigaan qoraxda marka ay sii wadaan safarkooda xaaladooda ayaa xumaata biyihiina way dhamaadeen dhanka kale Master Smith waxa uu arkayaa geedo meel fog ka muuqda dhanka bari isaga oo u maleynaya dhankaas inay biyo jaraan Jaynesna waxa uu leeyahay waa qiyaali waxaadu waana inay sii wataan safarkooda dhanka koonfureed laakiin Master Smith ma dhageysan hadalka Jaynes waxa uu u dhaqaaqayaa dhanka uu geedka uga muuqday nasiib wanaag halkaan waa ceel biyo leh waxayna rabaa inay halkaan ku nagaadaan dhowr maalmood Jaynesna waxa uu xasuusinayaa dhammaantood inay biyo haystaan laakiin ay cuntadu yar tahay haddii cuntadu ka dhamaatana ay daciifi doonaan laga yaabana in dhammaantood ay ku dhintaan dhex sidaa daraaddeed dhammaantood waxa ay go'aansadeen inay sii wadaan safarkooda maalintii xigta waxa ay qaataan biyo intii ay qaadi kareen waxa ayna sii wadaan safarkoodu maalinta kale uu ka sii darayaa sidoo kale duufaan ciid wadata ayaa ku dhufatay lama degaanka nasiib wanaag si la yaab leh ayay uga badbaadeen duufaanta laakiin badi biyahoodii way daateen waxa ayna sii wadaan socodka dhanka kale Irana way daciiftay iyada oo daashay lugaha ayaana si xun u bararaya laakiin waxa ay sii wadaa socodka si aysan dadka kale dhib ugu keenin kadib markii ay xoogaa hore u socotay Irana mar kale ayay dhacday nasiib darro way dhimatay kadib waxa ay sii wadaan safarka kadib dhowr maalmood mid ka mid ah asxaabtooda oo lagu magacaabo Thomas isagana uu geeriyooday hadda 4 qof kaliya ayaa soo hartay maalmo kadib way daciifeen ayaga oo niyad jabay hadda Master Smith waxa uu ku dhow yahay inuu quusto waxa uu Jaynes leeyahay ma sii socon karo markii uu maqlay Jaynes waxa uu ku dhawaaqayaa magaca wiilkiisa oo ruushku dhowr sano ka hor dilay si uu niyadiisa u kiciyo kadib Master Smith waxa uu dhiirigelinayaa dhammaantood waxayna sii wadayaan safarkooda kadib dhowr maalmood oo safar ah waxa ay ka gudbaan lama degaanka waxayna gaaraan meel biyo leh halkaasna waxa ay ku dilaan mas si ay u cunaan kadib dhowr saacadood oo socda waxay gaarayaan darbiga Shiinaha laakiin ma geli karaan Shiinaha sababtoo ah dagaal Shiinaha iyo Japan u dhaxeeya ayaa ka socda kadibna waxay bilaabayaan inay fuulaan buuraleyda baraf kale ee Himalaya iyaga oo u socda dhanka Tibet intii ay safarka ku jireen waxa ay gaareen macbad halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay waxaana la siinayaa cunto iyo hoy halkaasaana nin wadaad u sheegaya si ay u gaaraan Hindiya waa inay maraan Sikkim balse waqtigan aysan bixi karin sababtoo ah duufaan baraf ayaa dhici karta Jaynesna waxa uu rabaa inuu markiiba sii wado safar Master Smith waxa uu sheegaya Jaynes inuu rabo inuu halkan ka tago si uu u aado Laaha kadibna Shiinaha sababtoo
ah howlgalka uu Shiinaha ka wada Mareykanka. Wuxuu qorsheynayaa inuu ka faa'iideysto caawinaantooda si uu uga laabto Mareykanka. Maalintii ku xigtay waxaan aragnaa Janice iyo labada kale ee soo haray oo sii wata safarkooda Himalaya. Waqti yar kadib si guul ayay u gaaraan Sikkim, halkaasoo dadka deegaanka ay caawinayaan. Kadib waxaan ogaanaa Janice inuu ku laaban dalkiisa Poland muddo 50 sano kadib, sababtoo ah Poland weli waxay ku jirto xuquuqda shuuciga. Waxa uuna ku laabtay gurigiisa 1989 markii ay xor noqotay Poland. Halkaas waxaa ka muuqda muuqaalkii malawaalka ah ee uu arki jiray. Furaha ayuu ka soo saaraya dhagax hoostiisa isagoo furaya albaabka. gudaha guriga waxaa ku jirta xaaskiisa oo hadda gabowday. Markay is arkeen waxay noqdeen kuwo aad murugo iyo farxad u dareemaya. Filimku halkaas ayuu ku dhamaaday. Haddii aad ka hesho muuqaalka like, YouTube ka subscribe, dhaw kuma santa daawashadaada.